waswaaska shaydaanka internetka qiso jacayl oo dhab aheyd waa qiso runtii aad u xanuun badan oo mudan in lagu cimri qaado qaasatan marka aan fiirino sida dadkeena Soomaalida ugu bateen adeegsiga internetka. Waxaan jeclaysay inaan idin soo gudbiyo bal qisadan ila dhageysta. Waxay tiri walaalayaal waxa idin soo gudbinayaa qisadan oo dhab ahaan aad i taabatay. Waxa burburi mustaqbalkayga, waxa dumi gurigayga, waxaan kala tagnay ninkayga, waliba anigoo ka soo jooda qoys dhowrsan. weligay kuma fikirin inaan sameeyo qaladkan oo kale oo Ilaahay iga caroodo. Waxaan guursaday wiil aan isjeclayn, aad i ixtiraami jiray, iguna qabay kalsooni weyn, isagoo familkiisu dareemeen wanaagga naga dhaxeeya. Dhinaca qoyskeennana waxay igula kaftami jireen, waxaad heshay nin ah horta gabar kala arag oo waxaad jeceshahay ku siiya. Ma xasuusto shay odaygayga ka codsaday oo ii diiday, wax walbana sida ugu macquulsan ayuu igu heli jiray. Laakiin maalmaha ka mid ah waxaan ka dalbaday inaan guriga internet ii soo geliyo. Wuxuu yiri gurigayga uma rabo qad, laakiin ugu dambeyn wuu ku qanciyay. Waxaana ka ballan qaaday inaan waxan ku sameeynin. Wixii intaan ka damay kadib waxa waqtigayga ugu badan siiyay qadka kale oo asxaab badan ku yeesha. Isagu wuxuu aadaa shaqadiisa, mana i weydiiyo waxaan ku sameeyo, waayo kalsooni badan ayuu ugu qabay. Intaas kadib waxaan isbarnay wiil ka mid ah asxaabta internetka oo ii soo jiiday si weyn. Waxaana ka helay farxad aan weligay ka helin qof bala aadan ah. Maalin badan xigta waan xiriiri jirnay, ilaa seegaygu ka maseero mararka qaar inuu qadka kale asagoo guriga jooga. Wuxuu waqtiga socdo, wuxuu ninkayga u dhibsado waqtiga aadka ugu tirada badan ee qadka ku bixiya. Wuxuuna dareensiiyay inuu raalli ka ahayn habdhaqankayga cusub, ilaa aan gaaro heer aan la dhuunto wada sheekaysiga wiilkan aan isbaranay. Waxay ahayd markii ugu horeysay oo ninkaygu ii muujiyay cara. Waxaan halkaas ka bilowday xiriir xumo aniga iyo asagana dhaxmaraya. Waxa qalbigayga u soo jiitay wiilkan cusub oo haddii aan iska furo ninkan qaylada badan inuu guursan doono. Wiilkan cusub ayaa mar walba iga codsan jiray inaan kulano, balse markuu xumaaday xiriirka aniga ee ninkayga ayaa go'aansaday inaan fursad siiyo jacaylkayga cusub. Ugu dambeyn maalin baa ballanay oo aan is aragnay, waxaana dhaxmaray sheeko iyo wax kasta oo rag iyo dumar ay sameeyaan, ilaa aan ka naxay khiyaanadan kula kacay ninkayga. Markii dambe ninkayga ayaa go'aansaday inuu internetka ka saaro aqalka. Waxaana bilaabay inaan telefoon iska wacno wiilkii oo xiriirkeena sii la xadsaday, halka khilaafka aniga odaygayga oo sii kordhay. Ninkaygu wuxuu arkay fariin qoraal telefoonkayga ugu qoran, wuxuuna aad uga naxay. Waxaan ku kacay, wuxuu go'day waxyaabo badan, wuxuuna ii sheegay inuu cafiyay dalaaqadeydina uu siiyay, asagoo ii ballan qaaday inuusan dadka igu ceebayn oo qoyskayda u sheegayn fuxshiga aan ku kacay, taasoo jacaylka ii qabay markay ahayd. Markii aan kala tagay ninkayga oo u sheegay wiilkii, wuxuu durbay ii muujiyay qalbajab iyo waxaan ka filaynin. Wuxuuna uu yiri weligay kuma fikirin inaan guursado gabar aan qadka ka bartay, mana jeclay inaan xaas ka dhigta qof xumaan ila samaysay, ilaa berri qof kale ay sidaas la samaynaysaa. Naxdin iyo amakaag halkaasna waxa ka bilaabatay cuqdatu nafsi aan weligay ilaabaynin. Anigoo jecel qisadan igu dhacday in cimri ka dhigtaan walaalaha isticmaala internetka, gaar ahaan dumarka. Walaalayaal, shaydaanku wuxuu maraa xididadahan dhiigga ee iska ilaalinna. Anigana Ilaahay i barya inuu iga tooba aqbalo. Sidaas ayaa gabadha kusoo gabagabaysay sheekadeeda. Fadlan antaas ka heshay muuqaalkan like saar.